dadka loo doortay inay ka qayb galaan ama qayb ka noqdaan wada hadalladaasi waxa aan hubaa inay yihiin dad arrinka loo fadhiyo ka ah daacad ka ah dhanka khayrka la u wada dhanka dhismaha u wada dhanka yani wax wada qabsiga u socda shirkani insha Allah waxaan rajaynayaa inuu noogu dhamaado guul oo aan uga farxino shacabkeena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maxaa yeelay waxaan ka hadlaynaa sidii loo walaaloobi lahaa wax loo wada qabsan lahaa si dhab ah loo wada hadli lahaa shirkana runtii qabanqaabadiisa dhawaan ma ahayn sanadkii la soo dhaafay yaan kala hadlay madaxweynaha walaalkeen Ismaaciil Margeelle waxay ahayd inuu qabsoomo Oktoobartii la soo dhaafay oo isagu ka shaqeeyay laakiin ma suuroobin waxaan ku iri madaxweynuhu 20 sano ya carta laga joogaa xorriyadda markaan qaadanayna waxa laga joogaa 30 sano sanadka soo socda 2020 sanadkan aan ku jirno 30 sano waa wada joognay dib iyo dheefba 30 sano waa burbursaneen oo adduunkan ugu liidanay meel xun yaa naalay caruurteena waxay ahayn caruurta ugu fursad xun ama ugu mustaqbalka xun caalamka adduunka wax walba oo bini aadam ku hormarana meesha ugu hooseysan yaan joognay haddii noqoto waxbarasho caafimaad horumar maalgashi wax kasta oo bini aadam ku hormari karo ummadda Soomaaliyeed anagoo ah ummad aad u aqli badan u xigmad badan u taariikh fiican wax walba wadaagna laakiin caalamku waxaan ka galnay wax walbaba meesha ugu hooseysa wax kale ma aha waa go'aanka madaxda ay qaadatay oo taariikhda galaya hadda iyo mustaqbalkaba marka in si geesinimo leh loo wajaho xaqiiqda dhabta ah loo wada hadlo walaalkay Ismaaciil Margeelle waa ka dhabeeyay inaan ka wada hadalno 30 sano soo socda xagee taginaa 30 sano waa wada joognay 30 sano waa kala maqreen kan soo socda caruurteena maxaan uga tagnaa dhaxal iyo mustaqbal weeye waxa gudigan loo sameeyay marka la wada hadlo oo la wada fariisto oo la heshiiyo go'aan la qaato waxa la rabaa go'aankaas iyo heshiiskaas cidii fulin lahayd waa idinka ummadda Soomaaliyeedna meel kasta joogto isheen ku haysaa meeshaad u kaxaysaan haddaad tihiin gudiga farsamada haddaad barwaaqo iyo nabad u kaxaysaan iyo haddaad meel kale u kaxaysaanba annagu waan siinay kalsoonideena dadkii ugu aqoonta badnaa baa tihiin Soomaaliya ama meel kasta Soomaaliya joogto dadkii ugu aqoonta badnaa baa tihiin waxaa loo baahan yahay inaan mustaqbalkeena hadda aanin waqti hadda joogaan idinka fikirin aad ka fikirtaan 30 sano soo socda caalamka xagee ka galinaa xagee caruurta ila waa tageynaa kulligeen ma wada joogeynaa dadka halkan fadhiya 30 sano ma aqaano inta naga har doonta laakiin kuwa hadda jooga dhalanaya maxaan uga tagnaa oo mustaqbal ah gacantiina ku jirta annaguna taageeradeena waa haysataan waxaan idin rajaynaynaa guul waxaan idin rajaynaynaa is-afgarad iyo oo waaltinimo ku dheehan run Allah isu sheego wixii la tabanaya si adag laga wada hadlo wixii la wada goosto ee lagu heshiiyana run laga dhigo hal rumay taas baa laga soo soconaa xagga yaga waxaan halkan labid run wixii dhibaato aan sheegno wixii dan inoo wada ma hadan Soomaaliya quraas maanta Soomaali maxaa u dana qodobka u dana ee ka fursan weynayna waan la nimid walaaladeena waxaan u sheegnaa si walaaltinimo ah iyaguna waa soo kale waxaan diyaar u nahay inaan dhageysano ra'yiga naga duwan kaayaga ka fog inaan dhageysano oo dulqaadkeeda yeelo oo rogrogdawaan u nimid idinkana saayis laga ka doonaynaa shalay arrintu waxay ahayd madaxweynayaashii waa shiray oo hadlay oo dhageysanay mas'uuliyadii waan soo wareejin gudidan wasaaradda loo soo wareejiyay anoo tilmaantayda waan idhi
war hal la wada heshiiyo war waxa la isla afkarto waa dhamayn maanta waxa la soo eegayaa guddida farsamo ee halkan ku hadhay inay keento technical war waxay noqdaan khasab maaha in maanta wax walba la isku afkarta waxa weeye waa in tallaabooyin jiraan maanta la isla afkaran kara maxaa inoo halkee ugu badan ku heshiin karaa maxaa ugu dhowan ku wada heshiin karayna maxaa adag